bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaykum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kulan wacan wanaagsan daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan oo meel kasta oo dunida ka joogtaan iyo si kasta warkeenu idin soo gaaraya waxaad ku soo dhawaataan war wixii dalkii dibadda naga soo gaaray adaan oo kalena aad ka daawataan baahinta shabakada wararka ee Shumisa TV. Qodobada wararkan idin kugu soo gudbin doona idinkuna aad kaga bogan doontaan baahinta shabakada wararka ee Shumisa TV hadii ay baweyno ogolaadana waxaa kamid ah jadiidka oo khilaafkii ugu adkaa abidu soo kala dhaxgalay iyo kulan ay ku yeesheen gudaha magaalada Muqdisho oo loo diiday inuu ka qayb galo Sheekh Shariif Sheekh Ahmed. waxyaabaha la isku hayo ogaatay shabakada wararka ee Shumisa TV warkeena ayaad ku daawan doontaan. Madaxweyne Farmaajo oo ka baaqday kulan haatan ka soconaya gudaha dalka Turkiga oo ka qayb galay ee madaxweynaha dawladda Kenya Uhuru Kenyatta iyo waxyaabaha sababay in madaxweyne Farmaajo uu ka baaqdo kulankaasi warkeena ayaad uga bogan doontaan. dawladda Mareykanka oo soo saartay digniino ay u dirtay wadamo dhowr oo ay ka mid tahay Soomaaliya iyo sidoo kale ammaanka dawladda Soomaaliya oo si weyn heegan loo geliyay warkeena ayaad uga bogan doontaan. intaas waa qodobadii ugu door karona warkeena daawada haddii aad nagu cusub tahay channelka subscribe saar like share naga iloobin commentigana nagula wadaag aragtidaada waa inuu muhiim. haatana ku soo dhawaada warkii oo dhan. jadiidka oo la tilmaamay in khilaafkii ugu weynaa abidu soo kala dhaxgalay waxaa la tilmaamay kulan ay ku yeesheen magaalada Muqdisho xubnaha ugu sarreeya jadiidka una doonayay inuu ka qayb galo Sheekh Shariif Sheekh Ahmed ee la tilmaamay inay gebiyaanba u diideen in kulankaasi uu qayb ka noqdo iyadoona la tilmaamay in kulanka ay ku yeesheen gudaha magaalada Muqdisho ee loo diiday ay si weyn doonayeen inay ugu dhaawacaan arrimaha doorashada iyo sidoo kale jadwalka ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble iyadoona la tilmaamay jadwalka ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya inay si weyn u diidan yihiin maadaama la tilmaamay in xilligani xubnaha ay doonayeen inay qayb ka noqdaan guddiga doorashooyinka dawladda Federaalka Soomaaliya uuna ugu daro ra'iisul wasaare Roble gebi ahaanba u diiday. waxaa la tilmaamay in maalmihii ugu dambeeyay kulamo ay la qaateen ra'iisul wasaare Roble ayna ka codsadeen in xubno loogu daro guddiga doorashooyinka dawladda Federaalka Soomaaliya sidoo kale dawladaha xubnaha ka inuu si weyn ugu gacan saaray isagoona u sheegay in arrintaasi ay tahay mid aan la aqbali karin iyo sidoo kale khiyaano qaran. waxa uu tilmaamay xubnaha ka mid noqonaya guddiyada doorashooyinka dawladda Federaalka Soomaaliya sidoo kale dawladaha xubnaha ka in la doonayo inay noqdaan guddiyo ka madax bannaan musharaxiinta iyo sidoo kale madaxda dawladda Soomaaliya. waxa uu tilmaamay in guddiyadaasi laga doonayo inay cadaalad sameeyaan isagoona xusay in xilligani aysan jirin cid lagu raali gelinayo in xubno loogu daro guddiyadaasi. ugu dambeyn waxaa la tilmaamay in ra'iisul wasaare Roble uu shaaciyay goobaha sida weyn looga agayo arrimaha doorashada iyadoona la tilmaamay in goobahaasi ay dood badan ka keeneen iyo sidoo kale cabsi xooggan oo xilligani soo wajahday xubnahaasi. waxaa la tilmaamay in Sheekh Shariif Sheekh Ahmed ay si weyn ugu eedeeyeen in muddooyinkii ugu dambeeyay uu si weyn ula shaqeynayay villa Soomaaliya iyagoona tilmaamay go'aano dhawaan ay ka qaateen dawladda Soomaaliya inuu si weyn uga hor yimid. wuxuuna tilmaamay in go'aanada ay ka qaateen dawladda Soomaaliya xubnahani ay yihiin go'aano qaldan iyo in loo baahan yahay in madaxda dawladda Soomaaliya gaar ahaan ra'iisul wasaare Roble looga dambeeyo arrimaha doorashada. waxay tilmaameen in ay jiraan kulamo qarsoodi ah oo villa Soomaaliya kula qaatay madaxweyne Farmaajo iyo sidoo kale ra'iisul wasaare Roble uuna kala hadlayay arrimaha amniga iyo sidoo kale doorashada iyagoona tilmaamay inuu muddooyinkii ugu dambeeyay si weyn uga furtay xubnahooda oo la shaqeynayay villa Soomaaliya. waxayna tilmaameen inaysan marnaba aqbali doonin inuu qayb ka noqdo kulamada ay ku yeelanayaan gudaha magaalada Muqdisho iyadoona la tilmaamay in Shariif Sheekh Ahmed uu sheegay in xubnahani u diiday inuu kulanka qayb ka noqdo ay yihiin kuwa marnaba aan doonaynin dawladnimada Soomaaliya isagoona tilmaamay muddo dheer oo gacanta ku hayay waxyaabo ay doonayeen inay si weyn ugu waxyeeleeyaan dawladnimada Soomaaliya. waxa uu tilmaamay in xilligani aysan ka shaqeynaynin doorasho loo dhan yahay oo ka dhacdo gudaha Soomaaliya. waxa uu tilmaamay xilli kasta inay diyaar u yihiin inay suurista ku sameeyaan doorashada gudaha Soomaaliya isagoona tilmaamay in doorashada gudaha Soomaaliya ay tahay doorasho ay si weyn ugu qanacsan yihiin bulshada weynta Soomaaliyeed. waxa uu tilmaamay in ra'iisul wasaare Roble ay ka rajeynayaan in gudaha Soomaaliya uu ka qabto doorasho loo dhan yahay qaabka ay wax ku socdaan ay tahay mid wanaagsan. waxa uu tilmaamay haddii uu ka qayb galo kulamadooda xubnaha jadiidka in inta badan uu runta uu sheego uuna u tilmaamo in dawladda Soomaaliya xilligani ay diyaar u tahay in gudaha Soomaaliya ka qabato doorasho loo dhan yahay tan iyo markii uu soo bilowday khilaafka u dhaxeeyay xubnaha mucaaradka sare iyo sidoo kale Sheekh Shariif Sheekh Ahmed ayaa waxaa la tilmaamay inay dhalatay kadib markii dhawaan maleeshiyad ay samaysteen xubnaha jadiidka gudaha magaalada Muqdisho ayna doonayeen inay si weyn ugu wiiqaan amniga gudaha magaalada Muqdisho oo si weyn ugu hor yimid iyadoona la tilmaamay in markaasi uu aaday dalka Turkiga isagoo ka indhaqarsanayay waxyaabaha ay sameynayaan. waxaa la tilmaamay markii
dib uga soo laabtay gudaha dalka Turkiga inuu si weyn u cambaareeyay waxyaabaha lidiga ku amniga ay ka sameeyeen gudaha magaalada Muqdisho isagoona tilmaamay in amni darrada ay ka sameeyeen gudaha magaalada Muqdisho ay ahayd mid aan marnaba la aqbali karin taasi ay si weyn ula yaabeen iyagoona tilmaamay intii ku maqnaa gudaha dalka Turkiga kulamo uu la qaatay madaxda dawladda Soomaaliya oo qadka telefoonka uu kula soo xiriiray sidoo kale dawladda si weyn u taageersan ee dawladda Soomaaliya iyo sidoo kale mar kale in talada dalka uu ku guuleysto madaxweyne Farmaajo ay ku qaniyeen Sheekh Shariif Sheekh Ahmed inuu si doola shaqeeyo villa Soomaaliya waxay tilmaameen tan iyo markaasi inuu markaas diyaar u ahaa inuu ka hor yimaado waxyaabaha ka soo baxaya xubnaani ee isku bahaystay in xilligani aysan si weyn u aqbalin doorasho loo dhanyahay oo ka dhacdo gudaha Soomaaliya waxa la tilmaamay gudiyada doorashada ee inta badan ay muranka ka keeneen in qaybo badan oo kamid ah gabi ahaanba uu bedelay ra'iisul wasaare Robles si ay u qanaan xubnaani balse waxa la tilmaamay in markasta ay doonayeen inay dood badan ka keenaan gudiyada doorashada iyo sidoo kale jadwalka doorashada kulankii ugu dambeeyay ay la qaateen ra'iisul wasaare Robles ayaa waxa la tilmaamay inuu sheegay in isurisaag lagu sameeyo doorashada gudaha Soomaaliya ay tahay mid aysan marnaba aqbali karin isagoona tilmaamay wax kasta oo ku saabsan arrimaha doorashada inaan iyaga lagala hadli doonin maadaama uu tilmaamay xilligani in xukuumadda federaalka Soomaaliya ay si weyn ugu mashquulsan tahay arrimaha doorashada iyo sidoo kale doorasho loo dhanyahay ka qabato gudaha Soomaaliya balse xubnaani markaas ay isku dayaan inay si weyn u mashquuliyaan xafiiska ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale hay'adaha ammaanka ee xilligani sida weyn ugu hawlan arrimaha doorashada iyo sidoo kale doorasho loo dhanyahay oo ka dhacdo gudaha Soomaaliya madaxweyne Farmaajo kulan la qaatay xukuumadda federaalka Soomaaliya mas'uuliyiintooda ayaa waxa uu si weyn ugu bogaadiyay shaqada adag ay u hayaan bulshada Soomaaliyeed sidoo kale sida xilligani ay u diyaarinayaan jadwalka doorashada iyo sidoo kale sugidda amniga doorashada waxaana si weyn ugu booriyay in la bajibaara shaqadooda ku aadan arrimaha doorashada isagoona xusay in bulshooyinka Soomaaliyeed sidoo kale saaxiibada Soomaaliya ee beesha caalamka ilgooni ay ku hayaan xukuumadda federaalka Soomaaliya qaabka ugu wanaagsan ee doorasho ka qaban karta gudaha Soomaaliya waxa la tilmaamay madaxweyne Farmaajo si weyn ugu booriyay xukuumadda federaalka Soomaaliya markasta inaysan dhagjal u siinin kuwa doonaya inay dib u dhigaan arrimaha doorashada iyo sidoo kale buuqa waxba ka jirin ay ka keenaan gudiyada kala duwan ee doorashada gudaha Soomaaliya waxa la tilmaamay inuu xusay in dawladda Soomaaliya markasta ay ammaan iyo sidoo kale ee bogaadin u jeedinayso xukuumadda federaalka Soomaaliya oo tilmaamay shaqadooda u socoto si wanaagsan madaxweyne Farmaajo ayaa waxa uu diiday shirka ka furmay ee gudaha dalka Turkiga iyadoona la tilmaamay shirkaasi oo ka qayb galay ee madaxweynaha dawladda Kenya Uhuru Kenyatta waxa la tilmaamay xubno ka socday ee dawladda Qatar kuna sugan gudaha dalka Turkiga qaybna ka ah shir duceedii halkaasi ee ka soconayay inay doonayeen inay kulan ay ku yeeshaan gudaha dalka Turkiga madaxweynaha dawladda Soomaaliya sidoo kale dhigiisa dalka Kenya iyadoona la tilmaamay arinta ay gudaha dalka Turkiga u tageen mas'uuliyiinta qaaradda Afrika inay ahayd shirka sanadlaha yeeshaan madaxda dawladda Turkiga iyo sidoo kale madaxda qaaradda Afrika loogana hadla shirkaasi xiriirka u dhaxeeya dawladda Turkiga iyo sidoo kale qaaradda Afrika waxa la tilmaamay shirkaasi in madaxweyne Farmaajo uga baaqday kadib markii uu helay xog rasmi ah iyo sidoo kale Uhuru Kenyatta uu doonayo in shirka isaga iyo madaxweyne Farmaajo ay ku yeelanayaan gudaha dalka Turkiga in looga hadlo arrimo la xiriira badda Soomaaliya Kenya muranka galeysay sidoo kale qaadka gabi ahaanba dawladda Soomaaliya ay ka joojisay in laga keeno gudaha dalka Kenya madaxweyne Farmaajo ayaa tilmaamay haddii Uhuru Kenyatta uu doonayay in kulanka ay ku yeeshaan dalka Turkiga in qodobadaasi marnaba uusan kala hadli doonin in dhigiisa dalka Kenya waxa la tilmaamay mas'uuliyiinta ka socday dawladda Qatar in iyaga xaggooda dadaal iyo waqti dheeraad ay ku bixinayeen qabsoomida shirkaasi iyadoona la tilmaamay in gabi ahaanba madaxweyne Farmaajo uu go'aansaday xilligani inuusan wax kulan la qaadanin Uhuru Kenyatta maadaama la xusay in dawladda Kenya ilaa iyo hadda wax rali gelinaysan ka bixinin duqeymo dad shacaba ciidamadeeda ay ugu geysteen gudaha gobolka Gedo madaxweyne Farmaajo ayaa xusay ka hor intaysan kulanka qaadanin isaga iyo dhigiisa dalka Kenya in dawladda Kenya rali gelin buuxa ay ka bixiso duqeymo ay ku xasuuqday dad shacab oo ka dhacay gudaha gobolka Gedo isagoona xusay in ciidamada dawladda Kenya ay cadeysteen duqeymaha inta badan ay la beegsadaan dadka shacabka waxa la tilmaamay mas'uuliyiinta ka socday dawladda Qatar inay si weyn ugu guuldareysteen qabashada kulankaasi iyadoona la tilmaamay madaxweyne Farmaajo kulanka ka furmay gudaha dalka Qatar una dhixiyay
madaxda qaaradda Afrika iyo sidoo kale ee dowladda Turkiga oo wakiishay wasiirka arrimaha dibadda dowladda Soomaaliya. Madaxweynaha dowladda Kenya halkaasi uu ka jeediyay khudbad uu si weyn ugu calacalay in dowladda Soomaaliya mas'uuliyiintooda marnaba aysan doonin inay wax kulan la qaataan. Madaxda dowladda Kenya isagoona tilmaamay in gudaha dalka Kenya xilligani haddii ay ahaan lahayd ganacsigii iyo sidoo kale amnigiiba ay si weyn u saameysay dowladda Soomaaliya. Waxa uu tilmaamay dowladda Kenya dhaqaaleed inuu si weyn ugu tiirsanaa qaadka ay geyso dowladda Soomaaliya, isagoona tilmaamay in gebi ahaanba gudaha Soomaaliya xilligani loo diiday diyaaradaha qaadka sida ay ka tagaya dalka Kenya, halkaasi oo tilmaamay in malaayiin lacaga ay ka heli jireen ganacsada qaadka ee dalka Kenya. Waxa uu xusay dowladda Soomaaliya in xilligani ay si weyn ula xiratay dowladda Itoobiya, isagoona tilmaamay in qaadka ka soo gaar dalka Itoobiya xilligani suuq wanaagsan uu ka helay gudaha Soomaaliya, isagoona tilmaamay dowladda federaalka Soomaaliya qaadka ka yimaada dalka Itoobiya ay ogolaatay inuu si degdeg ah ku soo gaaro gudaha magaalada Muqdisho iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee gudaha Soomaaliya. Dowladda Mareykanka ayaa digniin u dirtay wadamo ay ka mid tahay Soomaaliya, iyagoona tilmaamay in wadamadaasi xilligani ay wajihi karaan khatar kaga imaan karta ururada argagixisada, iyadoona tilmaantay in dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale dowladaha kale loo baahan yahay inay si weyn u adkeeyaan amniga, maadaama ay tilmaameen in xilligani gudaha Soomaaliya la filayo inay ka bilaabato doorasho, iyagoona tilmaamay in xilligani bulshada ku nool gudaha Soomaaliya ay si weyn ugu mashquulsan yihiin arrimaha doorashada. daawadayaal guud ahaan waxay dalka dibadda inaga soo gaareed kala socoteen baahinta shabakada wararka ee Shumisa TV wanaga inta idinkuna waad ku maasantiin daawashada iyo la socodka warkeena. Intaan ku kulmi doono warkan warka xiga waxaan idinkaga tageynaa sidaas iyo amaana Allah ismaqal dambo xiiso leh.